بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شوقة هل كان يانا وجهه كوب يا شوقة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داونية سودوا ولا الصوماليين هل كان عاو عندنا كمان مغنى قفنا كمان مغنى محابيستي الشيشة لسكو حرني هل ميت كمان دمنا كل يوم واقوان قدال تاجن سودوا هذا مركز سودوا هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمهان سودوا هذا ولا الصوماليين إنجنير هيكل وركوا اسمه صارنا وين بنعاوس إنه سودوا الماء ريال وشير كان يلاقي له سومالي اللي بهدي شفتو تل هدان كان عاوس شير كان يلاقي له هرت ما يمغشان سيفا ما يمغشان هذا الكيجا ما مغشان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن عيرو ما يمغشان الله هاي هدي فهيم أبشر ها هي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا الله الصوماليات ملك السؤال شوكتان وايد وضع السلام عاو ماشى لغما كلام مغنى ولا وضع دنيا كل شان يطبنكي محبوسة وشيشة لسكو حرنا الصومالية دي كجحنا واكو كي تاجن وين سلام ولا ليل كل مر وضع السلام وين سلام نباتي سلامته ديك قادستيدا marka la idinka sugaya caawa warka idin sidno war kala maahan arrin caawa aad rag waa careysan yahay xididkii la saraaca wadhiig ma leh waxa la filayay asbuucyadan soo socda raggan inay muqdisho ka casheeyaan ama ka qadeeyaan farxad iyo reereen iyo bulshadoodii la qaybsadaan laakiin caawa maalinkii shiishan 20 sano iyo 24 sano xukuntay naxdin aysan nixin bay caawa naxeen waxa ka naxsiyeena wax kale ma ahe waa war ka soo yeeray madaxtooyada Soomaaliya wallaahi billaahi tallahi caawa habeen inooga xuntahay shiishan isba kuma naxirnaan sababta keentayna idin sheegaya video baan dhageysanay halkan ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo waxa la war saxaafadeed sii deynaya isaga iyo wasiirka warfaafinta Yariiso wax kale kama hadleen waxay ka hadlayeen maxaabiis la soo daayay oo Itoobiya laga soo daayay kuwa Hindiya ka xiran oo qareemo loo qabtay oo la soo deynayo iyo 15 maxbuus oo shiishal isku xiran oo iyagu doortay inay shiishal joogaan yaa gorma adduunka dhinaca kale loo rogaan uu shiishal waaga noqdo gormayse kuwaanu shiishal waaga noqdeen ay u dhashay shiishalis gormay muwaadiniinta noqdeen u dhashay shiishalis sababtu maxay tahay shiishalis ay ku doorteen wiilashan waxa la yiraahdo 24 sano xukuumad 7 sano xabsiga ku jira dooqsa ma leeyihiin ay ku doortaan shiishalis ay yiraahdaan shiishalis baan ku joogaynaa su'aasha caawa meeshan taalla waxa weeye ee aan weydiinayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya 140 qof ka soo hayaamay meesha la yiraahdo shiishalis xagee joogaan xageesa ku nool yihiin ma waad ka warqabtaa ma waad ogtahay hargeysaad ka timid oo waxa la yiraahdo kaga soo gashay waxa la yiraahdo dawladda kaga soo biirtay yaa inaadeer macaan ma waad ogtahay 4 sano wiil Soomaaliya oo waxa la yiraahdo shiishalis lagu xukumay laga qaaday ina 4 sano lugaha silsilad kaga xiran tahay caguhu ga'een xukunkiisina 24 sano iyo 30 sano uu yahay ma ka warqabtaa xagee buu joogaa hargeysa ku xiran yahay xabsiga weyn hargeysa bartamaheeda ku yaalo ku xiran yahay haddaad indhaha laadahay ama waxa la yiraahdo moogan tahay war mooge haddii aad aqbashay wiil yar oo wasiiro dawla ah oo shalay markuu halkaan igu yimid aan video ka hadlayay Facebook sababta aad uga hadashay video Facebook ii sheegay
wiil yaroo wasiiru dawle ah oo shiishal iska tegey inuu maskaxda iyo maanka ka rogo caqli aan soconaynina u sheego waa nugu damirma annaga caaw waana nugu dhaawac aad iyo aad bayna moraalkayaga u dishay waxaan qaadan karnana ma ahan dowladda soomaaliya kana aqbalayno niyadayadu caadi bay u dhisnayd aad baan u faraxsanayd waxaannu filaynay ciiddan soo socotay carrafo inaanu familka iyaga la qaybsanno farxadda laakiin caawa rajadayadii mugdi bay gashay wax kalena mugdiga ma gelinina hadalkii ra'iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ka soo yeeray ayaa mugdiga gashay marka mudane ra'iisul wasaare ku-xigeen su'aalahayga inaad ka jawaabtood bulshada soomaaliyeed uga jawaabtaan doonaya su'aalahayguna waxa weeye miyaad ka warqabtaa se og tahay nolosha uu ku noolyahay wiilka hargeysa ku xidhan oo adigu aad ka timid war ma ka haysaa nolosha uu ku nool yahay ma waad ka war haysaa kuwa cagaha xabadda looga jajabshay ee garowe iyo boosaaso ku xidhan oo 24 sano xukuman halkaana laga qaaday ma waad ka warqabtaa warse bulshada soomaaliyeed jawaab ma ka siin kartaa ma waad u tagtay ma waad ka hadashay maalinna sababta aad ku tiri xasan cabdi cali baad doortay shiishalis inuu ku noolaado xabsigeeda yaa caddayn ma u haysaa ma u caddaynaysaa bulshada soomaaliyeed anigii oo cad oo taagan oo nool baa soo hadlaya oo leh shiishalis uma aanan dhalan melihi waxba igama gelin maxbuus baan ku ahay cadaawad baan ku joogaa anaa laygu haystaa xilliga kan aan hadlayo haddii la iga qaadayo aan helayo ruux iga qaada iyo dawlad waxa la ii danqanayso iga qaada saacaddaanan diyaar ah teer iyo maalinkii la keenay baan diyaar ahay waxa iga qaadaan laa haye wiilasha aad leedahay waa ka soo hayaameen adeer aniga maxkamad baa ii socotay maalinkii la soo qaaday ma garatay gacmaha jeeb bay iga xirnaydoo maalina gaari baan sii saarnaa waana soo saarnaa xabsigaa mar laygu soo waday marna maxkamadda laygu sii waday ma garatay mana aanan dooran karinin soomaaliyaan u socdaa iyo shiishalis baan joogayaa midna waxaan dooran karin maahay maxbuus baan ahay anugu soomada garan meeshii loo kaxeeyana waxa la yidhaahdo un ogaada oo suga haatan baan bulshada soomaaliyeed u caddaynaynaa mar kale iyo mar kale annagu maxaabiis baan nahay waxaannu doonaynaa xuquuqdii aannu lahayn dalkayaga iyo dadkayaga iyo familkayaga iyo ciiddayadii baannu rabnaa ma doonayno shiishalis inaan ku noolaanno magan ku ahaanno ma doonayno dad xunxunoo bakhtiya maalin kasta inay dushayada lacag ku qaataan ee ay doonaan waxa la yidhahdo waxay doonaan naga samaystaan maalin kastana in nala xaq duudsiyo oo dusha nolo kaga haya cag ma yeelayno 4 sano wiil soomaaliya inuu cagaha ka go'o silsilad kaga xirnaato hargeysa ma yeelayno midka garowe iyo boosaaso ku nool ee xabsiga ku jira lugaha in xabad looga jajabsho xabsigana uu ku xirnaado ma yeelayno mana aqbalayno waxaan idiin sheegayaa bulshada soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ee soomaaliyeed nama aqbasho namana anfacdo walaalaha soomaaliyeedow arrintan nama anfacdo muwaadiniin baan nahay xaq baannu leennahay dhallinyaraannu nahay waa soo kacaynaa dalka kan kuwii berri maamul lahaa baan nahay xooggiisii iyo muruqiisii baannu nahay aabbayaal baan nahay ilmaan naga dayacan xaq uma lihin inaan maantana la yidhahdo shiishalis bay doorteen namana qabato waxaan filaynay iyo waxaan sugaynana ma ahan waxaannu bulshada soomaaliyeed ugu soo cabanaynaa oo dowladda federaalka ee soomaaliya ugu soo cabaynayna iyo madaxweynaheeda iyo ra'iisul wasaaraheeda ma ahayn in maantana la yidhaahdo xabsigay doorteen shiishalis ku yaalla ma ahayn taasna ma aanaan filayn haatan iyo dan madaxweynaha soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha golaha baarlamaanka mooshin wadayaasha kuwa maalin walba mooshinka waday aan waxba tarinin bulshada soomaaliyeed hooyada soomaaliyeed ee rafaadsan ee ku dhibaatay saxbarxeraha barakacayaasha ee muqdisho dhabarkeeda ah kuwa aan ka hadlina 24 saac mooshinka wadow annagu xabsiga shiishalis ma aanan dooran xabsigaanan ku xirannahay maxaabiis baanu ku nahay dhoog fuudkaanu cunnaa dhoog fuudka wiilka xunkaa ee berifor ee idin yidhi waxbay ku nool yihiin yaa berri subax baan idin tusayaa saxankan badarka ku cuno raashinkaan cunaan idiin keenayaa berri subax ballan weeye inaan halkaan idinka tuso insha allah ilaahay hadduu idmo berifor haddaa aqbashay waxa uu kuu sheegay aniga ima anfacdo wax aniga i anfacana ma ahan kuwaan ila xiranna wax anfaca maaha araggiisa indhaha ka muuqda fiiriya
haye qofkan aan sugayna adiga weeye adna waxaa tiri xabsiga shiishalis bay doortaan xaggee iga soo qabataa ma inaad dhibta ila qaybsato dhaawac ila qaybsatay ahayd mase waxay ahayd inaad maanta tiraahdo heshiis cusub baan gelayaa oo heshiiska hore ayagaa burbursay oo doorsaday waxa la yidhahdo shiishalis caqligaasu xaggee ka soconaya in adeer gacali wiilkaaga hargeysa ka yimid oo ra'iisul wasaare ku-xigeenkaayo kan kugu xiga kii waxa la yidhaahdo kama arag sokaysid waxa la yidhahdo xeer ilaaliyaha hadda kan ah xukunka haya xeer ilaaliyaha qaranka ah ee shalay inta halkaa yimid wiilal waxa la yidhahdo xukunkoodii dhammaystay maxkamad dhammaystay inta Soomaaliya loogu geeyay yiri annagaa shiishalay ka soo daynay laba nin maaha inta kale annagaa ka soo futaaminay kii yiri kama aragti sokaysid in adeer macana nama qabato taas nagama kiin qabato shalay baysan naga kiin qaban maantaysan naga kiin qaban berri baysan naga kiin qaban dalkan iyo dadkan annagaa iska leh dadkiinna waxa la yidhaahdo gaboobay cimrigoodii maskaxdooduba doorsantay nacfiga ay jirto annagaa iskale dalkan waanu soo kacaynaa waana xoog awood iyo dabarna u yeelanaynaa waana maamulaynaa haddaan xabsi ku jirno macnigeedu ma ahanaan muwaadinimada ka tagnay muwaadin xaq ahana anigu muwaadin xaqa baan ahay u dhashay dalka iyo ciidda u dhashay baan ahay una dhididay inuu dhiman doona ma garatay shiishalisna anigu uma dhalan mana dooran karo waana ka haweynaa inaan shiishalis doorto oo aan idhaahdo shiishalis baan ku noolaanayaa nafsadayda waa ka haweynta soomaali baan ahay dhaloda ma ihi marti dalka ku yimid waxa la yidhaahdo baalkii mudane ra'iisul wasaare ku xigeen ha noogu noqon jawaabtana waannu kaa sugaynaa haddaad jawaab ka soo bixinayso jawaabtan kaa sugayaa wiilka 4 sano waxa la yidhahdo silsilada lugaha kaga xirnayd ee cagaha ay goysay hargeysa adigu aad ka timid jooga baan kaa rabaa xukunkiisuna 24 sano yahay 30 sanana xukuman shiishalisna laga qaaday oo aad tiri waa ka soo hayaameen qaabkee uga soo hayaameen uga jawaab bulshada Soomaaliyeed qaabkee uga soo habiyaa marka walaalaha Soomaaliyeedu arrintaas nama qabato dawladda Soomaaliyeed arrintaa nama qabato caawa muruga noo soo hoyatay qaraacan baa noo soo hoyaday dadnadu waa nugu xudyahay bulshadayada Soomaaliyeed dawladayada Soomaaliyeed walaalaha Soomaaliyeed waxaan idinka codsanaynaa waxa weeye oo idinka codsanayno idinka baryayno annagu shiishar Soomaaliya dhalan raalli kuma niin hal ilbiriqsi oo noloshayada kamid inaan shiishar isku noolaano aan joogno dooq aan leenahayna kuma joogno cabiidis baan ku joognaa dooq aan leenahay shiishar iskuma joogno cabiidis baan ku joognaa ma garateen haddaanu dooq leenahay oo shiishar aan dooq leenahay Soomaaliya hanoo qaado saacan baanu taagannahay siki noloshayda kamid raalli kuma hina shiishar isku noolaado waa xabsigeeda jooga fool xumo iyo dayac iyo darxuma nugu haysta takhtarka ma aadi karo riyaa ma aadi karo 3 bari waa huursanaa busta isaarnaa malaari bay haysay dhakhtarkan taga barasmool buu soo siiyay war lafaha iyo meel kasta way jaban tahay kariin lafa xanuun isiibaan ka kari waay yaa meeshaan waa shiishar isbiir wariyaa iguma qaynin kartid haye adna waxaad leedahay adaa doortay ايش معقول maskaxdu miyaysan shaqaynayn caqligu ma shaqaynayo miya bulshada tan Soomaaliyeed waxa loo sheegay ma indhaha ilaahay bulshada Soomaaliyeed oo waxa loo sheegay idinku ma indhaha ilaadihiin yaa 140 wiil baa ka soo yaamay 15 kan ayaga ogolaaday inay shiishar isku noolaadaan xagee ka soo yahaame xagee u yahoome u hayaame maxaas aniga dalkayga ii diiday maxay tahay waxa aan ka qaba dalkayga anigu aabaan ahay laba caruur sugayse yaa maxay tahay sababta aniga shiishar isugu haynaysa waanu joogay 140 wiil meelay ka tageen oo ay ka socdeen oo dooqa iyo leeyahay kaga tageen maxaa aniga dhigay ma aniga mangaaba oo maskaxda la bal bulshada Soomaaliyeed taas weydii yaa macquul ma noqonaysa aniga tansaan u hadlayay waa ogolaanaya shiishar inuu ku noolaado 140 wiil looga soo walaalayaalow